kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale channelkayga. Waxaan rabaa maanta inaan la wadaago sheeko aan maqlay anigoo yar. Waxaa la sheegay in ay laba nin saaxiib ahaayeen, laba nin oo isku deegaan, isku magaalo, isku faamil ka soo jeeday ayay ahaayeen. Labada nin wax walba way ka sinaayeen xagga hantida, aqoonta, dad waxa way rag ka siman ayay ahaayeen. Marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa labadii nin mid ka mid ah ayaa kii kale u yimid, markaas wuxuu ku yiri saaxiib waxaan ku weydiinayaa arrin aan aad ula yaabay. Haye saaxiib, arrintu maxay tahay? Nin wuxuu yiri labadeenu laba nin oo isla eg ayaan nahay, igama xoolo badnid, igama aqoon badnid, laakiin niyahow tala kasta waxa weeye talada aad bixisid waa la qaataa, laakiin aniga taladaada cid ma qaadato. Maxay ku dhacday buu yiri. This is the thing marka. Wuxuu yiri saaxiib, talada anigu waxaan siiyaa qof i weydiistay ayaan siiyaa, laakiin adigu taladaada waxaa siisaa qof aan ku weydiisan. Marka farqiga u dhaxeeya waxa weeye talo qof u baahan uu ku weydiistay aan siiyay iyo talo qof aan u baahnayn ama aan ku weydiisan aad siisay isku mid ma ahan. Ujeedka hadalku waxa weeye dadkeena waxaad arkaysaa qof aad talo weydiisan ama wax ku darsan oo arrimahaaga hadduu soo dhex galo kule arrintaasaa kugu dhacdaa maqlay saa samee, war arrintaasaa kugu dhacday saa samee. Yacni adigu raba in uu talo ku siiyo ama arrimahaagii kaala taliyo adigoo aan weydiisan wax talo ah. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin saaxiibayaal.